maalmahan shaqada amniga calaamadayaal baa saaran baa la leeyahay qaraxyo badan ayaa dhacay dabcan weerarkii xalay ugu dambeeyay arrintaas ka war shakhsi dhimasho soo aaday cid difaaci kartaa ma leh laakiin ciidanka qalabka sida ummadda Soomaaliyeed intooda badan war hooyada liida ku gadaysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay wiilka iyo gabadha xaamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto xeebta liida maalinka jimcaha maxay galabsatay iska ilaaliyaan shakhsi kasta oo ay ka shaqiyaan oo si xun u socda wax ku raran yihiin dhar ama boorsooyin wata oo aragtaan in iska jirtaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkii xalay xubno ka tirsan kooxda shabaab ay ku qaadeen xeebta liido oo dad badan ay ku caweynayeen maadaama ay ahayd habeenimo jimco ah oo dadku inta badan ay u dalxiis tagaan xeebta liido afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shir jiraa'id ku qabtay xarunta taliska degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 32 ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee halkaas ku sugnaa ay weerarkaasi ku geeriyoodeen halka tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 60 qofna ay dhaawacyo yihiin oo lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xalay xeebta liido dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa u badnaa dhalinyaro ku caweynayay xeebta liido maadaama habeen jimco ay ahayd halkaasna ay u dalxiis tagaan dadka ku dhaqan 20ka degme ee gobolka Banaadir habeenka jimcaha xeebta liido weerarkii lagu qaaday waxa uu ahaa mid bahalnimo ah kaasi oo dhibaato xoog la gaarsiiyay dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan ee halkaasi ku sugnaa xubno ka tirsan kooxda shabaab ayaa la rumaysan yahay in ay gudaha u galeen mid kamid ah hoteelada ku yaala xeebta liido waxaana sidoo kale mid kamid ah xubnahaasi uu isku qarxiyay dadkii goobta barxadda ah ee xeebta liido ku caweynayay haddaba waa kan afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo arrimahaasi ka hadlaya koox ka tirsan qawaariita ayaa ayaguna markii qaraxaas uu dhacay oo maatidaas goobta lagu xasuuqay waxay soo aadeen si foolka foola u soo aadan intii ka badbaaday goobtaas iyo intii hoteelka ku jirtay inay ku laayaan bulshada waxayna soo galeen hoteelka Beach View waxaana u soo gurmaday ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan oo ka hortagay fal ay damacsanaayeen kooxdaasi gudaha hoteelka soo gashay oo ahayd intii ka soo badbaada xeebta hoose ee uu isku qarxiyay qawaarijka intii ka soo badbaado gudaha soo aad inay baabi'iyaan balse geesiyaasha ciidanka ammaanka ayaa u baayac dhigay waxayna goobta ku toogteen saddexdii qawaarij ee gudaha hoteelka gashay goobtaas kaliya 2 askari ayaa ku dhaawacantay oo mid ka mid ah dhaawaca uu shahiiday laakiin waxay guul ka gaareen inay soo afjaraan kooxdii qawaarijta ahayd ee gashay gudaha hoteelka sidoo kale waxay wadeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo qawaarij waday balse ciidanku ay fashiliyeen markii ay ciidanku fashiliyeenna la qabtay qawaarijkii asagoo dhaawac ah oo nolosha lagu qabtay iyo gaarigii oo qaraxa ku xirnaa oo ay ka badbaadiyeen bulshada geesiyaasha ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka caasimadda war hooyada liida ku gadaysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay wiilka iyo gabadha xaamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto xeebta liida maalinka jimcaha maxay galabsatay taas waxay ku cadeynaysaa in qawaarijtu aysan u soconin heykal iyo nidaam dawli ama askari aysan u soconin ay u socdaan la dagaalanka magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan cid kasta oo dareemi karta dhibaatada xaddigaas leeg inay u istaagaan difaaca dalka iyo diinta lagana difaaco kooxan qawaarijta ay ku soo duulay inay magaca ummadda Soomaaliyeed baabi'iyaan guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood
waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood. ma ahan markii ugu horeysay oo weerar caankaani oo kala lagu qaado hotel ku yaala xeebta Liido oo ah halka ay u damaashaa tagaan dadyowga kala duwan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. xasan kaafi xaaji maxamed, Muqdisho.